sideed caaqil baa halkan jooga imika oo Cuqaashi Cabdiraxmaana go'aan waxaanu ku gaadhnay inaan mag laga qaadan la laayo dhamaantoodba hadalkaasina mid dib u soo noqonaya maaha camdi foolxun oo dhaqan cusub ah oo inagu cusub Somaliland marka waxaan leenahay halkaana dawladdu aanu leenahay arrintani waa arrin uguba ama cusub oon hore u dhicin oo wax sidan oo kale loo dilo aan hore u dhicin inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun Allahu naxariistee waxa maanta arbacada 18 Oktoobar magaala ganacsiyada Wajaale ee gobolka Gebile aas qaran loogu sameeyay Cabdiraxmaan Barre oo kamid ahaa dhalinyarada ciyaartooyga kubadda cagta ee magaaladaasi Wajaale kaasi oo ay dhawaan magaalada ugu dileen kooxo dhalinyaro ah oo kamid ah kooxahaasi kubadda cagta ee magaalada Wajaale aaska marxuunka ayaa waxaa ka soo qayb galay maamulka magaalada Wajaale xildhibaano ka tirsan golayaasha deegaanka iyo wakiilada Somaliland cuqaal salaadiin dhalinyaro qaybaha kala duwan ee bulshada magaaladaasi Wajaale kuwaasi oo taxsi u diray qoyskii iyo qaraabadii Allah u naxariisto ka baxay marxuun Cabdiraxmaan Barre oo kamid ahaa dhalinyarada ciyaartooyga kubadda cagta ee Wajaale isagana naxariistii janne Allah ka waraabiyo ilaa wayna raaji'uun Allah u naxariistee Cabdiraxmaan Barre askar god oo aaskiisii aanu ku haasano maxay ahayd Wajaale ilaahay waxaan uga taxsiyanaa geerida maxay ahayd foosho xun leh waxaan uga taxsiyanaa ehelkii iyo tubka guudba inuu ilaahay u naxariisto isagana jannatu firdawsa u geeyo arrinta foosho xun leh waa camdi fool xun oo dhaqan cusub ah oo inagu cusub Somaliland marka waxaan leenahay halkaana dawladdu bilayska iyo qaybtii kale ee waxbaaritaanku dhammaantood hawshooda way dhamaysteen laakiin dawladda waxaan halkaa uga sheegaynaa hawsha dhaqanka xun leh hadday yihiin dadka mas'uuliyiinta ay u xil saaran xagga maxkamadda iyo mas'uuliyiinta guud ee sarsaraba inay hawshaasi shareecada sida shareecada la mariyo oo arrinkaasi uu noqdo arrin mar dambe aanu dhicino arrinkaasi uu noqdo arrin dadkaasi dil lagu wada xukumo inta kale anagu haddaanu reer Wajaale dhammaantayo yar iyo weynba waxaanu leenahay arrintani waa arrin uguba ama cusub oon hore u dhicin oo wax sidan oo kale loo dilo aan hore u dhicin waxaanu kaga gamaynaa waxaan hore u dhicin oo kale in xukunku noqdo loo xukumo oo qadhaadh la mariyo cidda falkaa geysatay waxaan halkan ka sheegaynaa eenu faraynaa kooxaha arxanlawayaasha ah ee sida xun u dilay ee gacanta dawladda lagu hayo ee boolisku sida quruxda badan leh u sugay in lagu fuliyo qisaasta sharciga kitaabka ee diinigu tilmaamay in lagu fuliyo waa qodobada dawladda aan ka sugayno oo inay fuliso ku waajiba taa dawladdan farayaa ta kale dhalinyarada yaryar ee iga soo horjeeda dhanxeerka u badan waxaan iyagana faraynaa kuwa waalidada hanoonsana masaajidada gala maaha kuwa qadaadka xiirtee qoorta taagaya waa ku cimro qaata aabbayaashii baannu nahay waxaan go'aan ku gaadhnay inaan hanayno inaka sidaa wuxuu gelaya arxanlawayaasha inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun Allah u naxariisto marxuunkaasi inaga wada baxay dhammaanteen sabir iyo iimaanna Allah ka siiyo ehelkiisii iyo aqrabkiisiiba dilka horta waan ku raacsanahay in carruurtuna ku cibro qaadato odayaasha meesha ka maqanna ku cibro qaataan waxa weeye oon ka codsanaynaa hay'adaha amniga inay kiiskaasi dadajiyaan si loogu quus qaato magaaladana way ishuursan tahay reer Wajaale way is og yihiin inan bay isku garanayaan oday bay isku garanayaan waxaanu leenahay xukuumadda oo aad iyo aad u leenahay u faraynaa inay dilka wixii waxaa gala degdeg ay u disho oo u fuliso qodob waa dhalinyarta inta xidhan wax dishay maaha inta dibadda joogta waxay u diyaartii ka baxaadeen haddaad ka bixi weydaan kuwa ayaa idigu isla mid baatii guux baa jira waxaad ku jirtaan marxuumkaa la dilayna
ciddii dishay ha loo dilo ee qashqashaada ka daaya waannu wada fadhiisannay waannu wada shirnay waannu isla eegnay xaalad kastoo maanta meesha taallaba annagu haddaannu nahay ehelkii uu ka soo jeeday cabdiraxmaan iyo odayaashiisii 8 caaqil baa halkan jooga imika oo cuqaashii cabdiraxmaana go'aan waxaannu ku gaadhnay inaan mag laga qaadane la laayo dhammaantoodba hadalkaasina mid dib u soo noqonaya maaha runtii hawshani waa hawl inagu cusub waa hawl magaalada ku soo noqotay muddooyinkii u dambeeyey aad baan runtii uga tiiriyaansana in dhacdooyin noocaasa ay u wadkeenaan jeclaa ay ka dhex dhacdo kubadaha ay ciyaarayeen ay ka abuuranto runtii inay shaqaaqooyin isku beddelaan heer ay gaadho inay naf runtii nafa lagu waayo oo runtii aad looga damqado aadna runtii aan uga tiiriyaansana haddaan maamulkii nahay halkii soo kacayey ayaa intay kooxa noqdaan iyagu lafahoogiis isku dhibaataynaya oo gaadhsiinaya ilaa heer ay dil qudhan ama qof dhan oo walaalkiya oo wax ka galabsanay gooyaan waa aad iyo aad runtii baryahan noogu soo badanaysaa waxaanu arrintaa uga horteganaa sida ugu adag haddaanu nahay maamulkii degmada Togwajaale si loo xakameeyo hawshaas marka hore waalidiinta iyo waxgaradka odayaasha culimada iyo waayeelka waxaan ugu baaqanaa arrintaa inay ka qayb qaataan oo dhallinyaradaasi laga qayb qaato sidii loo xasilin lahaa annagana mas-uuliyad ahaan waxaan saaray inuu ammaan ka sugno si adag weliba u sugno markan ay taagan tahay in naf ay ku baxdo meesha dhammaan waxaan leenahay ummadda islaamka oo dhan ilaahay ha u naxariisto isagana ha u naxariisto inankaa yaree gacanta ka xaq daran dishay geerida naxdinta badan leh waxaa ka dhacday halkan masiibo aad u ballaadhan masiibadaasi oo ay dhallinyaro kala dishay oo guus lagu dilay ka timidba waxaanu isla garanay oo aanu taagannahay oo aanu kaga qanacayna in dil toogashaa loo taago halkaa ninkii imikaba inan kaga jiray ama ehel kale kaga jiray maanta xabaashaasi waa nagu keli cid ehel ahoo ay ubadkiisa kaga jiraan oo noo timidna ma jirto cid hadhow wax kale noola iman doonto dee wixii la mari jiraan marna odhan doontana ka yeeli mayna hadhow maanta waynu ognahay degmada Togwajaale halkay marayso kooxihii iyo ciyaalkii iyo kubaddii halkay nala marayso waynu ognahay ilaahay naga dawjiro Zakariya Nuux Ibrahim telefishinka CBA